Ciidamada Turkigu waxay galeen maalintii Arbacada gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee Suuriya si ay u xoojiyaan ciidamada sii joogay gobolka Idlib iyo sidii ay iskaga adkayn lahaayeen dhinaca Suuriya iyo furimaha dagaalka ah ee dhici doona mustaqbalka dhow ama u noqon doona furimo u dhow oo ka duuli karaan cadowgoodana la dagaalami karaan goortii uu suurto gasho. Idaacadda Turkigu waxay sheegtay guuto ciidamo Turki ah ay galeen oo gaadheen saldhigga militariga ee Kafarloosen Turkigu ku leeyahay gobolka Idlib. Ciidamada waxay wateen 20 gawaadhida dagaalka oo kala duwan, waxaa ka mid ahaa madaafiicda ridada dheer ee goobta dagaalka loogu talagalay iyo dabbaabado culculus oo tayadoodu sareyso, hub casri ah saaran yahay. Ilo lagu kalsoon yahay ciidamada Turkiga laga helay waxay sheegeen in guutooyin ciidamo ahi soo gaadheen gobolka Idlib ay ka badan yihiin hal guuto, bal ay soo gaadheen 7 guutooyin ah oo qalabkoodii dagaalkana u dhammaystiran yihiin, ku gaashaman gawaadhidoodii dagaalka, una dhammaystiran yihiin saanadoodii ciidanka looga baahnaa goob dagaal marka loo baahdo. Waxay soo gaadheen ciidamadaasi bishan Oktoobar aanu ku jirno. Sidoo kale askarigu wuxuu sheegay ilaa iyo markii ay soo galeen ciidamada Turkigu waddankan Suuriya waddanka Turkigu uu ku xoojiyay ciidamadiisa jooga gobolka Idlib ilaa iyo 137 guutooyin ciidamo ah, wateen taangiyadoodii iyo madaafiic iyo raadarada gantaalada sheega iyo raadarada dhexe. Waxaana ciidamadaasi ay tageen 3 goobood ee uu ciidamada Turkigu ay ka degan yihiin gobolka Idlib ee kala ah saldhigga Mastumah, madaarka Taftanaas iyo Tali Nebi Ayub. La soco wararka xiga.